Remember, this is the vaccine that's not authorized for use in the United States yet, so we're going to be sending it to folks once the FDA... madaxweynaha Mareykanka Joe Biden hadal uu jeediyay ayaa si weyn u cabsi geliyay wadamada caalamka isla markaasna shaki badan ku abuuray gaar ahaan dalalka ku yaala qaaradda Afrika iyo dalalka kale ee aan awoodin inay sameystaan ama ay soo iibsadaan tallaalka cudurka COVID-19 hadalkan uu jeediyay 17 bishii May ee sanadkan 2021 ayaa dib mar kale ugu soo maaxday maskaxda madaxda wadamada Afrika kuwaasi oo horay tuhun iyo shaki uga qabay wadamada reer galbeedka ragga sida aadka ah u falanqeeyay siyaasadaha hagardaamooyinka ku dhisan ee Afrikaanka ayaa markiiba ugu jawaabay qoraallo iyo muuqaallo ay ku falanqeeyeen hadalka ka soo yeeray madaxweyne Joe Biden waxa ay ku tilmaameen in ay tallaalka uu qaybiyo Mareykanka horantii sanadkan 2021 ay intooda badan ay soo aadeen qaaradda Afrika inkastoo uu xusay madaxweyne Biden in wadamada Mexico iyo Canada uu Mareykanka siiyay tallaal gaaraya 4 milyan oo xabbo haddana Afrikaanka ayaa aaminsan noocyo tijaabooyin hor leh in la geeyay qaaradda Afrika madaxweyne Biden oo arintaasi ka hadlaya ayaa yiri sidan 118 maalmood ee la soo dhaafay qorshaheena tallaalka wuxuu ahaa mid hogaaminaya adduunka maantana waxaan qaadaynaa tallaabo dheeraad ah oo aan ku caawinayno adduunka waxaan ogsoonahay in Mareykanka uusan wali noqonayn mid ammaan ah ilaa iyo inta la xakamaynayo safmarka ku faafaya adduunka waxa uu sheegay madaxweyne Biden in noocyo cusub oo jeermiska COVID-19 ay imanayaan taasi oo sababayso in dhibaatada ay ahaato mid sii joogto ilaa iyo inta laga samaynayo tallaal guud ahaan caalamka si Mareykanka uu noqdo mid badbaado ku nool waa inaynu maskaxdeenu adeegsanaa oo aan sameynaa wax wanaagsan taas oo yareynaysa khatarta COVID-19 dhammaadka bisha Abriil waxaan u dirnay qaaradaha adduunka 60 milyan oo tallaalka AstraZeneca xusuusnow tallaalkan ma ahan mid laga ogol yahay in laga isticmaalo Mareykanka gudihiisa ama lagu qaato ilaa iyo haatan haddaba waxaan diraynaa tallaalkan markii ay hubayaan laanta dawooyinka ee federaalka Mareykanka waxaan u diraynaa adduunka iyo wadamada u baahan hadalkan ayaa noqday mid ka careysiiyay dalal badan oo ku yaala qaaradda Aasiya iyo Afrika kuwaasi oo aysan dawladahoodu awood u lahayn in ay u sameeyaan dadkooda ama ay u soo iibiyaan tallaalka COVID-19 dhammaan tallaalada laga soo saaro Mareykanka waxaa loo diri doonaa dhammaan dalalka dunida ayuu sii raacay madaxweyne Biden wax jawaab kama aysan bixin Mareykanka ficilada iyo jawaabaha ay ka bixinayeen madaxda wadamada Afrika qaybtooda iyo dadka ka faalooda siyaasadaha qaaradda Afrika Asiisha hadalka madaxweyne Joe Biden ayaa ku soo aadaya xilli wadamada Afrika qaybtood ay weydiisteen in la soo gaaro isla mar ahaantaasna lagu soo caawiyo tallaalka xanuunka COVID-19 hadalka madaxweynaha wadanka Mareykanka ayaa sidoo kale waxa uu u muuqdaa mid ku aadan dadka qaybtood sida ay u falanqeeyeen ee ah in Mareykanka uu doonayo inuu ku tijaabiyo tallaalka xanuunka COVID-19 nooc kamid ah oo haatan qaaradda Afrika la keenay madaxweyne Joe Biden waxa uu sidoo kale sheegay in noocyo kale oo tallaalka COVID-19 loogu deeqayo wadamada aan awoodin inay soo iibsadaan ama ay sameysaan tallaalka COVID-19 wadamada caalamka ayaa waxay u muuqdaan inay guulo ka soo hoyeen tallaalka xanuunka COVID-19 inkasta oo ay wali ay socoto tijaabooyinka noocyo kale oo tallaalo ah kuwaasi oo la doonayo in lagu tijaabiyo wadamada caalamka qaybtooda iyada oo aysan wadamada qaybta tijaabinaysa ama kuwa tijaabinaya aysan u ogolayn inay ka bilaabaan tijaabada wadamadooda intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkan mid lamid ah intaanu ku kulmi doono waxaan ku dhaafayaa nabadgelyo